waxa weeye safarkii baan ku guda jirnaa wali waxaan rajaynayaa inuu noqdo safar aad u xiiso badan oo in waxyaabo badan ku baranno meelo cusub iyo dad cusubna ku soo baranno Soomaalida meelaha aan u socdo joogto waxaan leeyahay isu fura waa la idin soo socdaa sahal waa kan waa sahal waa idin soo socdaa marka waa sii wadaay inaan duba saaxiibayaal safarkaygan sii wadanaynaa aad u mahadsantiin waa safar road trip waa gaari kulka lagu maraayo Exit the traffic circle onto South Raymond Road. Continue for 2 miles. 2 miles. Young shopping area in Sweden. Gothenburg area. Yeah. This isn't where oil is pumped out of the ground. But it's where they bring it. And they turn it into gasoline and turn it into shidal. Yeah, meesha lagu nadiifiyo waaye. Yeah, crude oil kala keena. Yes. Yeah. I understood. And so those towers are called cracking towers. Yeah. So as the oil goes up, it becomes different, and they take it off at different levels. Wow. So yeah, you can see it all year long. Yeah. See. And this is on the way to Manchester. Yeah. Nice. Qorraxda xaggaas ka soo baxaysa. We're passing over 90 90 would take us all the way through Madison, Wisconsin, and we would you know, madow waaye lo madow barwaaqo baadiyaha barwaaqo ay ku jiraan muddo. Hello, good morning everyone. Soo dhawaada saaxiibayaal halkani waa igala socotaan waa Iowa waa laga soo tagay Minneapolis maxaa la oran jiray Minnesota and somewhere in America loo socdaa like waa surprise markaan tago aan idin sheegi doonaa meesha u socdo so kanaalkii uu ka baxay Minnesota oo 6 bilood joogay so this is my surroundings tuulo baadiye oo Iowa ku taalo yeah so dhawaada saaxiibayaal ciao road trip baby Exit the traffic circle onto South Raymond Road. Continue for 2 miles. 2 miles. Tuulo qurux badan halkan xaafadda. Interstate is marka aragti waa gaduud waa blue. Okay. So how state to state Dhexmara. So US highway is like calaamad saaran oo state to state. But it's like dadka afar صح. interstate US highway
gobolkaana hadda maraynay Iowa waa kasii baxaynaa adiga 30 mayl kadib 34 mayl kadib waa ka baxaynaa balanteena waxa weeye inaan Mareykanka lug wada marno dhulka aan meel walba inta tusasay oo state walba meesha loo socdana markaan tago baan idin sheegi doonaa markaan 34 miles kadib waa ka baxaynaa Iowa eena waa ka galaynaa landscape aad u qurux badan yahay waa beeraley sida xaafadii ku dhashay oo kale sida maxaas iyo moqokori oo kale u kala yaqaana magaalada waxaa la yiraahdaa Cedar soo galayna hadda waxay ka tirsan tahay Iowa صاحب سافر كان قال بيريح لكن مرة ما يلاقي واحنا كنت صار يا ايش لما ايه شركة لما وين اكو يلا بناك يلا سيدا ليك ايه هذا هيديو
Look at this area. halkan waa suuliyaal oo nasniin loo istaagay waa nasniin سعنا سانت لويس مسوري صوب صح ما مرينا سان لويس marka waxa way faan oo le faray kama qodna ayna baa ka biyo dhow so halkaas nagala socotaan annagoo badan oo baabuur wadana sidaas ay ogtahay St. Louis Chicago is there? That's the highway that goes to Chicago. Okay. Goes up. Okay. Let's see. St. Louis is a big city. I just built it. That's downtown, I think so. The car is coming so fast behind me. In half a mile, keep left to stay on I-64 East.
That's it. State line, yeah, so quite cheap. Yeah. Keep left to continue on I-55 North. Okay, so we're leaving 64. Continue on I-55 North for 2 miles. In 2 miles, use the right 2 lanes to take exit 3 for I-64 East, Illinois 3 North toward Louisville. So we are in Illinois soon. There's the sign. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Waa ka travelkeena halka taagan travelkeena. Yeah. meesha waa kulayl waa somewhere in Illinois Illinois ma aqaano adaa khaldo ii soo qora saaxiibayaal sidaas ay waqtay gaas baan istaagnay gaaskaas meesha gaaska waa jimicsanaynaa lugaha kala baxsanaynaa faanoole fare kama qodna meesha u socono waxaa ka dhiman 300 oo mayl 300 oo mayl baa ka dhiman yaa aad ugu mahadsantihiin ila socotaan saaxiibayaal wata idin sheegay inaa soo wada surprise badan marka muuqaalada iska soo daba dhacayaan safar gaaban oo aan isteediyo badan ku marayno haddii rabiidno waa say u bilaabatay faanoole fare kama qodna waxaan safar soo ahaa 6 saacadood ka badan hadeerna waxa ii soo haray 4 saac ka badan ilaa waadan beerka beenay waa ku salaamaya waadan salaamaya waxa leeyahay war ka wada waan daalanahay hadalkan isku khalday waa aragtaan saasi waqtay meesha aan joogo Little Nashville balahan Little Nashville Illinois way tan warka waa Nashville kale maaha Nashville oo Tennessee ma ahan waa Nashville Illinois waaye so you can see xabad Soomaali oo halka gaari wata marka waka traagaya taagan dadku ku nasanayaan shidaal bay ka qaadanayaan cuntooyin bay ka qabsanayaan so waxa weeye safarkii baan ku guda jirnaa wali waxaan rajaynayaa inuu noqdo safar aad u xiiso badan oo in waxyaabo badan ku barano meelo cusub iyo dad cusubna ku soo barano Soomaalida meelaha aan u socdo joogto waxa leeyahay isu fura waa la idin soo socdaa sahal waa kan waa sahal waa idin soo socdaa marka waa sii wadaayeen aan duba saaxiibayaal safarkaygan sii wadanaynaa aad u mahadsantihiin waa safar road trip waaye gaari dhulka lagu maraayo yaa waaragtaan meelahan joogo iyo meelahan marayo waaragtaan waa dhul qurux badan oo laga shaqaystay oo beeraley u badan dhul beeraley u badan waaye so yeah marka sidaas way xaalku saaxiibayaal update-ka idin siinayay soo yaaca soo bata aad ugu mahadsantihiin waan dhaafnay 9,000 waan dhaafnay 10,000 baa ku sii siqaynaa aad ugu mahadsantihiin xartayda I am Sahal family oo kor noo qaaday kor baan soo wada qaadnay waxa weeye waa istaageernay dad iyo dalbarashadu halkeeda ka sii soconaysaa ya iyo integrationka aad u mahadsantihiin ciao waa sii wadaya inaan duuba saaxiibayaal faanoole fare kama qodna hawl kama daale wali waa hogadii meeshan gas station waxaan rabaa inaan ka isticmaalo bathroom yeah I'm gonna go bathroom somewhere here ku yaala tolo ha miin waa kan
Yes, waa sii wadaa inaan duubo markaan soo xaajo gudto saaxiibayaal dhammaantiin. Can I have sugar? Yeah, sure. When? There's that machine right next to the smoothies. Cannot see it. It's right there. Here. Yeah. I don't know how to use it. Cream and sugar. Yeah. Okay, can you help me please? So which one do you want? Creamer? Yeah. Sugar? Sugar. Sugar? Yeah. Can you press that button? This one. Oh, this. Okay, thank you. Okay, Thank yeah. you. That's good. Yeah, thank you. So, I'm gonna pay. Okay. This one. Okay. Yeah, this one. Big 10 is your change. Yeah, thank you so much. Yeah, you too. Maybe this one. Yeah. It's big. So, yeah, sorry saaxiibayaal. Sii wadaa inaan duubo ciao. Fiiriya landscape-ka dhulka soo qurux badan yahay saaxiibayaal. Illinois ayaa meelo ka tirsan. Isteedyo badan oo soo maray sida idin sheegay. Iowa, Missouri. Yeah. Marka haddana waa Illinois. Waxaa lagu sii soconaa Tennessee. State Tennessee. Lagu sii safraya. Yeah. Very beautiful. Jidku waa nadiif aragtaa. Pilot aan ku fadhiyaa pilot. Ku fadhiyaa. Yeah. Pilot waa pilot. Driver waa dhaafay. Yeah, that's big lake. Right there. Big lake. Illinois miyaa halka ay maraynaa hadda? Yeah. Weli waxaan guda jirnaa stateka Illinois. Niman Amerikaana la socdaa iyaga dhulka ii sheegaya. Waa ku dhalan gaaray qayr qaarna ku dhasheen. Jidkaan la cabahayaa weli waa la cabahayaa. Wadadaan cabaynaa. Taagadaas rag baa ku fadhiya. Lighting Tom. Aragtaan maaha. Weli lakeska la daba joogo. Dhulkaan dhul qurux badan waaye. Maaragta waxaa taraagal kastamaya. Nice. Very beautiful day way. Teeda kale weatherkaan saacaday roob ma jiro, kulayl saa'id ma jiro, dabaylo ma jiraan, waxba ma jiraan. Ilaahay baa wadada noo xaaray. Seedkaygu xataa jaam maaha, seedkaa kala jaam
see. So gaalkacyo. Medical center. Welcome to USA saaxiibayaal. Intaas oo waxaan soo marnay maanta state isaga dhex tusnay welina waan soconaynaa 10 hours ka badan. gees ka gees baan rabnaa inaan uga baxno Maraykanka. Landscape-kan quruxdiisa fiiriyo saaxiibayaal. Wow, forests, kaymo, hills, qurux badan, dalcado ka baxa oo ka degan. Inaba caadi maaha. Dhirtaas oo dhaqaaleeyo. Buurahaas waxaa isku jarjaran. Dalcad aan ka degayno fiiriya. Maraykankii waa dhammaynay. Saan u soconaynay. jidkaan la cabayaa jidka. Wow. Inaba caadi. Waxaa ku qoran attractions exit 15. Inaba caadi maaha. Wow. Waa meelo oo reserve area oo camping iyo waxaas laga samaysto waa qurux badan. Amazing. Vienna. Yeah, Vienna, Harrisburg. Yeah, Vienna, Harrisburg. Vienna, Austria. Caasimadda Austria, yeah. Waa tegay laba mar meelahaasaan tegay. Marna transit baan ku ahaa, marna caadi baan tegay. Yeah. Waxaan sheegaynaa tii Yurub, Vienada iyo Yurub, tan Maraykanka maaha. This is Ohio. This is Ohio River. Waa kana Ohio River ahaa oo soo wanaagsan. Riverkana la jaraa. Ohio River waa aragtaan. Saaxiibayaal. Daawasho wanaagsan. Doontaas ay sitaa ciid, ay sitaa meelaha lagu dhisanayo. Yeah. Kentucky soo galay miyaa? Geli rabnaa haa. Laakiin webigan waxaa la dhahaa Ohio River. Waxaa la dhahaa. Daawasho wanaagsan. Kentucky aan soo gelayna Kentucky. Yeah, there. Yes, I see. Waan tusayaa boorka waliba. Welcome to Kentucky baan tusayaa. So maaragtaan Kentucky. Maaragtaan welcome to Kentucky. Yes. Aad baa saaxiibayaal. Yeah. Waxaan ku jirnaa Kentucky hadda. Waxaa la baashaalo dalxiis wanaagsan. Paducah ahaa. Paducah. Waa magaalada caasimadda miyaa Kentucky? Kentucky's going to. It's gobolka waaye. Paducah is a small town. Yeah, small town miyaa? Louisville. Magaalada Kentucky weyn. Louisville. Louisville. Okay. Waxay la socdaan nin Maraykan ah, Soomaali Maraykan. Waxay la socdaan. Yeah. Soo aragtaan. Beautiful.
is the horse racing. magaalada macnaha waa tartanka fardaha ugu weyn ha marka baduuku ka dhaca Mootooyinka dhan way imaadaan Dhabi mootooyinka oo fiirsanaya waa baduuka waa kan taariikhda waan hadda dhex marayno waddadan cabayna saaxiibayaal akhbaartuna sidaasay hadda isaga soo daba ka dhacaysaa waa casar liiq miyaa la dhihi jiray cadceedoona saaran iyo waddada xawaal husband road 3 husband road 3 ummadda halkan inay tahay wilwiilo qorax zaa'id meeshas hore kala ku jirta waddada xawaal Tennessee River baa la dhahaa Tennessee River jeeda Tennessee River waa kan gobolkan socon hadda la galay Tennessee River daawasho wanaagsan Got it? Yeah, I got it. Welcome to Tennessee. Yeah. To make this Beautiful mountain. Nashville, Tennessee. Look at this. Amazing. I remember Jon shopping area in Sweden. Gothenburg area. Yeah. Head southeast on I-24 East. Wow. This is 40? What do you say? No, it's not I-40. Isn't I-40 west? No, we're not going west. Yeah, 1.3 miles. Okay, wait. Nashville, Tennessee. In half a mile, keep right at the fork to continue on I-65 South. Follow signs for I-40 West, Huntsville. To Google Maps talking. I'm gonna show you here, صاحبي. Yeah, fine food, cocktails. Thank you. Keep right at the fork to continue. Yeah, Nashville, Tennessee, maybe. Yeah, Yeah, look like that. beautiful. 40 and 60 is like, we stayed 65. Okay, Yeah, we good. are staying 65.